ما دام هكذا حيسي جعلوا كده حي لبدا مرحومة يسا وحول الثلاثة كيف يكموه مشغول بكده ترى قراي ما يتكسبوا ضفري إن عدالة أنا دخترنا هالكذا كنتي على بودي توب أو دعي بودي أي أحد اللي على بودي مو يام بودي مالك استري حبك شوي محكمة دي بدا ياسي مينا كيني دي ولك هذا لما يسمع في هرتي سجوان ولا كل ملايا ودي دي أنا وعد أنا دمر كسوماليات سومالي لا جولا وحلنا من حين مسبيحي tan waa gabadh lagu hadalhayo barihii ugu dambeeyay baraha bulshada taasoo la lahaa Hargeysa ayaa lagu dilay laakiin cid dishay runtii lama garanay runtii waxa loo haystay xukuumadda Soomaaliland wasiir ka tirsan oo runtii wiil uu dhalay ayaa loo haystay laakiin waxa ciidanka booliisku ay markii dhaliilaha ay shacabku soo dirayeen ay ka fariisan waayeen runtii waxay karteen in ay baaraan xaqiiqada loo geystay inantan ee runtii dilka taasoo laga soo qaaday guriga nin uu dhalay wasiirka ka tirsan wasiirada Soomaaliland laakiin ciddii dishay lama cadeyn haddaba maanta ciidanka Soomaaliland cadeysay ciddii dishay taasoo ku tilmaantay in labadooduba ay ahaayeen laba ruux oo ka soo jeeda xagga iyo Soomaali deegaanka Itoobiya gaar ahaan qaybaha ka shisheeyay ee deegaanka lagu magacaabo ama meel ay deegaan dadka jeestado runtii waxay ka yihiin dadka ugu yar Itoobiyaanka laakiinse colaada kadib markii xaggan soo qaxeen ayay Soomaaliland sheegtay inuu qof xaggan isla waqti xadradii ugu dambeeyay Soomaaliland ku noolaha ninka dilay ayaa kadib markii la soo hortaagay ciidanka booliiska ay soo qabteen sheegay in uu isaguna Itoobiyan yahay laakiinse uu naagtan kala dhaxeeyay jacayl xad dhaaf ah kaasoo hinaase inantan ku dilay sabab darteed halkaasna nafteed ay ku weeday hinaasaha ragga ayaa barihii ugu dambeeyay soo badanayay halka kufsiga iyo jirdilka gabdhaha Soomaaliland loo geysanaya oo tirakooba yeelan waayay haddaba bariyahan ugu dambeeyay waxa soo badanayay dilka iyo kufsiga loo geysanaya gabdhaha ugu badnaanta xagga koonfurta laakiinse maadaama uu soo gaaray gudaha Soomaaliland isma lahayn hablaha Soomaaliland jooga waxaan nila geysanaya kufsi iyo jirdil laakiinse maantaba kufsi laakiinse baaritaan dheer kadib ciidanka ayaa sheegay in uu gabadhan ninka ku dilay hinaasi saas darteedna ay nafteeda ku weeytay kadib markii ay dumarka Soomaaliland codsadeen in ay gabadhan cadaalad hesho gaar ahaan qoyskeeda oo runtii la hadlay telefishinada sida baraha bulshada lagu faafinayay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay sidoo kale muddooyinkii aad ku tirada badnaa ee ku dhawaanayay wiiga in la raadinayo ninkan inanta dilay sababtoo ah runtii wax laga soo qaaday wasiir ka tirsan Soomaaliland kaasoo gurigiisa wiilka uu dhalay lagu dilay laakiinse wiilka uu dhalay wasiirku ayaa runtii loo haystay inantan maadaama uu isagu keenay dhakhtarka kamid ah dhaqaatiirta Hargeysa ugu waaweyn runtii isaga iyo nin kale ayaa keenay laakiinse runtii waxa loo haystay wasiirka wiilka uu dhalay ee Soomaaliland ka tirsan maadaama cadaatay ninkii dilay inantan iyo sababaha uu ku dilay isagoo sheegay inuu telefoonka ka qaban weyday mashquulna ka dhigtay sidaas darteedna ugu yimi guriga ama meelaha ka shaqeyn jirtay uu kala balmi jiray runtii kaasoo haddii jacayl ka dhaxeeyay uu yaqaan meelaha ay joogto badanaa ku badantay halkiina uu soo dhacay kadibna uu toori ku dilay haddaba sidoo kale saaxiibayaal muuqaalka inanta sawirka inanta ayaan xagga hore timelineka nii soo saari doonaan waad eegi doontaan waa sawir runtii aad u naxdin badan halkan waa channelka xogbeynta warka saaxiib hadan nagu cusubtay subscribe saar boqolkii subscribe waxa yar ayaa ka dhiman saaxiib waxaan rajeynayaa in saacadaha soo socda boqolka subscribe aad dhameystiri doontaan insha Allah hadii Allah awood dara ka dhimo saaxiibayaal boqolka subscribe ka dhiga wax yar oo fudud inaad gaarsiisaan waa mahadsantiin mar walba saaxiibayaal meel kasta joogtaan